الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى بني آدم كوحو أبو ري وأدونك الله كياني إلا امتحانه oo la kala saaro lagu imtixaano wanaagga iyo wax wanaagsan ee la siiyay lagu imtixaano sidoo kale xaaladda adag iyo duruufta adag ee uu marayo lagu imtixaano shirrada iyo xanuunka lagu imtixaano faqriga iyo baahida lagu imtixaano xoolaha iyo qinaha lagu imtixaano xoogga iyo awoodda lagu imtixaano dacfiga iyo tabardarrida lagu imtixaano xaaladihiisa dhammaanteed. allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay in aan labada xaaladoodba ku imtixaananahay. wanabluukum biاlshari wاlkhayri fitna wabalownaahum biاlxasanaati wاlsayi'aat. haddii aad xaalad wanaagsan ku jirtana waad imtixaanantoo waa lagu fiirsanaya bal saad u dhaqanto. xaaladdu hadday kaa liidatana waad imtixaanantoo waxaa la fiirinayaa bal saad u dhaqanto. natiijada imtixaankaa ka soo baxa unbaana wax lagu qaybsanaya. ninkii imtixaankaa ku dhacayna adduuniya aakharaba waa khasaaray. ninkii imtixaankaa ku baasoo ku barmoosana adduuniya aakharaba waa liibaanay. adduunkani marka saasaan ugu imtixaananna awaamirta rabbi, sharcigiisa, takaaliifta, nicamka iyo muxuu ahaayey dhibaatooyinka intaba xaaladeennu waa xaalada imtixaan. natiijada imtixaankaasna waxaa la qaybin doonaa iyo abaalgudkiisa. adduunkana waxbaa la soo hormarin, laakiin qaybtiisa rasmiga aakharay dambaysaa. halkaasaa laysku doonsiin doonaa nin walba natiijadiisii imtixaanka iyo abaalgudkii ka dhashay. intaan nool lahayse imtixaankaasaan dhex dabaalanayna. haddaba suuro ka mida suurooyinka nabigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, iyadoo aad u fara badan tahay qur-aanka kariimka inuu arrintaa ka hadlo oo ina dareensiiyo. axaadiista nabigana sal alla alay wasalam iyaduna aad uga hadashay ujeeddada muhimka ah si aan u fahanno oo aynaan u garamarin. iyadoo nusuusta noocaasi aad u fara badan tahay ayaa haddana waxaynu soo qaadanaynaa xadiid cajab badan oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inoo sheegay. xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey. waxa uu rasuulku leeyahay sal alla alay wasalam, 3 nin oo waxaa jiray ummaddii inaga horrayso reer bani israa'iil ahaa. 3da nin aafay qabeen, mid walba dhibaataa gooni u haysay, musiibo gooniya baa haysatay. 3dani mid ka mida cudurka baraska la yidhaahduu qabay ee jidhka caddeeya. midka labaadna timihii madaxa ka buubay oo madax cad iyo timo la'aan buu ahaa. midka saddexaadna nin indhool ah oon indhalahayn oo waxba arkaynin buu ahaa. 3daa nin buu alla damcay tabaaraka wa tacaala oo doonay inuu imtixaano. imtixaankoodu siduu u dhacay u fiirso. malag baa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala. malaggii wuxuu ugu yimid 3dii nin suuro bini aadam buu ugu yimid, nin caadi ah yuu iska soo dhigay. ilaan allah tabaaraka wa tacaala malaa'igta wuxuu awood u siiyey haddii rabbigood u idmo tabaaraka wa tacaala inay suuro aadame ku imaan karaan oy ruuxa ugu imaan karaan. suuro bini aadam buu ugu yimid. wuxuu u tegey ninkii baraska qabay. wuxuu ku yidhi, wax aad hesho ama lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay? maanta wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay? markaasuu wuxuu yidhi, waxaan ugu jeclahay midab quruxsan iyo jidh quruxsan iyo in ay dhaafo iga tago xanuunkan baraska ah
dadku igu qurunsadeen dadkii baa iliitay meeshaan imaado waa laga cararayaa waa la yasayaa mujtamacii baa layga takooray xanuunkan in ilaahay iga qaado midab quruxsan aan helo wax maanta kaasa wax walba ugu jeclahay wuu masaxay oo gacantuu mariyay malagii waa bogsooday oo wixii oo dhan waa ka tegay jir quruxsan iyo midab quruxsan baa la siiyey intaa markii la isugu daray baa wuxuu ku yidhi xoolana maxaad ugu jeceshahay wax sheego markaasuu yidhi geel baan ugu jeclahay waxaa la siiyey hal 10 sid ah bishii 9aad bishii 10aad ilma sida yani wax way dhalmadeedii baa dhow waa xilliga geelu ugu qaalisay ayaa la siiyey hal riman oo bisheedii 10aad ku jirta guddoon baa la yidhi intaa markuu u dhiibayna wuxuu ku yidhi allah ha kuu barakeeyo waa isaga tegey ninkii timuhu ka buubeenoo timala'aantaha buu u yimid wuxuu ku yidhi war wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshay wuxuu yidhi waxaan ugu jeclahay in timihii la ii soo celiyo timo inaan yeesho cudurkan timala'aanta ahee dadku igu dhibsadeenna inuu ilaahay iga qaado asagana waa masaxay waxaa loo soo celiyey timihiisii timo quruxsan ayaa madaxa loo saaray kadibna wuxuu ku yidhi xoolo maxaad ugu jeceshay lo'daan ugu jeclahay neef lo ah oo isagana riman sac dhalaya ayaa la guddoonsiiyey oo la yidhi qabso waana loogu duceeyo waxaa la yidhi allah kuu barakeeyo waa isaga tegey indhoolkiibuu u yimid wuxuu yidhi war maxaad ugu jeceshaa wax lagu siiyo wuxuu yidhi in ilaahay indhahaygii ii soo celiyo oo wax kala arko dadka inaan arkaan rabaaye ilaahay araggaygii inuu ii soo celiyaa wax walba maanta ugu jecla asagana waa masaxo gacantuu mariyey oo markiiba araggiisii baa ilaahay u soo celiyey markaasuu siduu rabay wax kala arkay wax u kala baxeen xoolo maxaad ugu jeceshahay baa la yidhi adhigaan ugu jeclahay waa neef adhi ah oo lamaan oo wata ilmihiisii wata ayaa isagana la guddoonsiiyey qabsaa la yidhi allah kuu barakeeyo waa isaga tegey imtixaanka qaybtiisii hore saasuu ku dhammaadayoo cudurradiina waa layska saaroo caafimaad iyo qurux baa loo baxay xoolana waa layska dharjiyey kadibna ninkii neefka geelee 10 sidkaa la siiyey hasha riman la siiyey hashii waa ka dhashaday way tarantay ilaa geeliisii uu gaadhay tog dhan iyo dhul dhan geel daaqahaya ayaa hashii ka dhashay kii neefka lo'da lahaana sici waa u dhalay waa tarmay lo' fara badanoo tog dhan buuxinayso isaguna yeeshay kii indhoolkaana sidoo kale ridiisii waa ka dhashaday ridii neefka wadatay isagana waa u tarantay markaasaa waxay noqotay tog dhan inay buuxisay saddexdoodiioo sidaa u ladan yaa oo nin walba tamashleynahay oo caafimaadka ku tamatucayo oo xoolo ka dheragsan yahay ayaa imtixaanka qaybtiisii labaad ku bilaabatay isla malagii laftiisii baa u yimid suuradii buu ugu yimid qaabkiina waa ugu yimid ma suuradii markii hore ee isagu u imaanayay uu lahaabaa waa suuroobi kartaa mise nin walba suuradiisoo kale ugu yimid kan oo indhahala suuradiisoo kale kan muxuu ahay timuhu ka buubeen suuradiisoo kale ayadana waa suuroobi kartaa suuradiisii iyo hay-addiisii buu ugu yimid markaasuu wuxuu ku yidhi kii waxaa lagu soo hormaray baraska qabay wuxuu ku yidhi niyo nin miskiinaan ahay socotana waan ahay jidkii iyo asbaabtii iyo nooligii baa iga go'ay aan jidka ku mari lahaa ee waxaan ku weydiisanayaa oon kugu weydiisanayaa allaha jidkan quruxsan ku siiyey xoolahanna ku siiyey allaha magaciisa waxaan kugu weydiisanayaa hal neef oo geel ah oo safarta u kaalmaysto meeshaan u socday ku gaadho sahayda iga bixi war hal neef oo geel ah
geel dhan oo tog buuxinaya muxuu ka dhan yahay markaasuu wuxuu ku yidhi adeer xuquuqdu waa badan tahay geelan xuquuq badan baa lagu leeyahay anigiiyo geeloon hana fiirinine laakiin geelan xuquuq badan baa saaran raalli ahow kaciskata socodkaaga wado meeshaad wax ka helaysa ka hel markaasuu wuxuu ku yidhi warniyo inaan ku garanayaabad moodaaye inaan garanayaad u eg tahay miyaadan baras qabi jirin oodan faqiir ahaan jirin oo ilaahay xoolo ku siinin baraskiina kaa daaweynin markaasuu yidhi waxaa sheegaysa xoog ma jiray dhaaf xoolahan aad arkaysa buu yidhi aniga iska dhaafe ka awow rag waaweyn baa kala dhaxlay buui rag waaweyn yaa odayaal oo sharaf leh baa xoolahan soo kala gaadho oy ka soo jeedaane warkaad akhriyaysa bannaanka la aad buu ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi haddaad run sheegayso warkaaad sheegayso run yahay sidaad ahaan jirtay allaha kaa dhigo maxay tahay macnaheedu xoolahana allaha kaa qaado baraskiina allah kugu soo celiyey waa isaga tegey ninkii waxaa loo yimid timuhu ka buubeene aqrac ahaa wuxuu ku yidhi warniyo socotaana sahaydina waa iga goodo waxaan ku weydiisanayaa allaha tabaaraka wa tacaala timaha quruxsan ku siiyey xoolahanna ku siiyey waxaan ku weydiisanayaa hal neefoo lo ah oo aan safarta u kaalmaystoon jidka ku maroon sahay ka dhigto intaa keliya isii sidooda kor isaguna ku jawaabo wuxuu yidhi adeer xuquuqdu waa badantay raalli ahow war miyaana ku garanaynin ood hebel ahayn war ninkii nooca ahaan jiray soomati inaan ku garanaya aad moodaayo maya isma garanayn xageed ugu aragtay ya war xoolahan odayaal iyo ab baan ka soo gaadhay raalli ahow haddaad saad sheegayso ay run tahay ilaahay sidaad ahaan jirtay ha kaa dhigo isagana waa ka tegey indhoolkii baa loo yimid oo adhi badan u daaqahay wuxuu ku yidhi niyahow waxaan ahay nin miskiin ah socotona waan ah sahaydii baa iga gooday socod ma jiro maanta allaha ii kaalmeeya kadibna adiga oo i gacan qabta mooye meel gaadhid iima sugnaan meel lama gaadhi karo ee allaha tabaaraka wa tacaala araggaagii indhahaaga kuu soo celiyey dartii waxaan kugu weydiisanayaa iyo magaciisa waxaan kugu weydiisanayaa hal neefoo adhi ah oo aan sahay ka dhigtoo safarta u kaalmaysto hal neefoo adhi ah ninkii indhoolkaa wuxuu yidhi niyo horta indhool baan ahaan jiro waxba ma arki jirin ilaahay baa ii soo celiyey araggaydii faqiirna waan ahaan jiray ilaahay baa xoolahan aad arkaysa i siiyey sidaas daraaddeed xoolaha wax alla waxaad rabto ka kaxaysuu yidhi hal neefa soomaada codsanin war hal neefa iska dhaafay intaad dhex gasho intaad doonto kaxayso intaad doontana ka tag ilaahay baan ku dhaartay maanta inaanan kugu dhibaynin xoolo aad ilaahay dartii u kaxaysatood meesha ka kaxaysay kuguna dhibi maayo kuna weydiin maayo khiyaar baad leedahay kaxayso imtixaankii waa dhammaaday soo maaha natiijadiisii iyo shahaadadii hoo marka iyo abaalgudkii hoo wuxuu ku yidhi war saddexdiinnaba waa laydin imtixaanay horta xoolahaaga hayso buu yidhi yaa xaaladdu waa caddaatay xoola kaama rabi horta xoolahaaga hayso laakiin saddexdu ahaydeena waa laydin imtixaanay labadaadii saaxiib ilaahay baa u cadhooday adigana ilaahay baa raalli kaa noqday ya labadaadii saaxiib ilaahay baa u cadhooday maxaa yeelay ilaahay nicmadiisii way inkireen cudurkii laga saaray way dafireen xoolihii la siiyey way dafireen way ka shukrin waayeen kaabir can kaabir bay u saareen allihii siiyey intay garab mariyeen baa waxay yidhahdeen abiya awoobaan ka dhaxallay xuquuqdu waa fara badantay iska tag bay jawaabtoodii noqotay cadho ilaahay baa ku habsatay tabaaraka wa tacaala amaa adiga allah raalli kaa noqday nicmadii baad qirtay wixii laguu galay baad ogolaatay waad xustay waad ka abaalgudday oo waad bixisay ilaahay baa raalli kaa noqday tabaaraka wa tacaala qisada cajabta badan ee nabigeenu bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh duruus badan baa ku jirta duruusta ku jirtaay waxaa ka mida kow horta nolosha waa imtixaananahay faqiirku waa imtixaanan yahay haniguna waa imtixaanan yahay ka jiro waa imtixaanan yahay ka caafimaad qaba waa imtixaanan yahay
jaahilku waa imtixaanaya caalimkuna waa imtixaanaya madaxdu waa imtixaanan tahay raciyaduna waa imtixaanan tahay raggu waa imtixaanaya dumarkuna waa imtixaanaya imtixaan buu noloshani ciyaar ma aha afaxasibtum annama khalaqnakum cabathan ciyaar laynooma abuurin ee imtixaankaasaan ku jirnaa imtixaankaasi haddii aad ku baastana natiijadiisu waa ilaahay ridihiisa haddii aad imtixaanka ku dhacdana waa ilaahay cadhadiisa ninkaana ilaahay raalli buu ka noqday laana imtixaankii buu ku baastay labadanna ilaahay baa u cadhooday maxaa yeelay imtixaankii bay ku dhaceen sida adduunka loogu cadhooday bay aakharana naar ilaahay ku gelayaan tabaaraka wa tacaala waxaa kaloon ka qaadanaynaa qisada cajabta badan bini aadamka iyo dabeecaddiisa bini aadamka iyo dabeecaddiisa waxaa dabeecad u ah in uusan xusuusanin wuxuu soo maray iyo wuxuu ahaan jiray laakiin uu ku xisaabtamo un maanta wuxuu yahay sidoo kale uusan fiirinin maxaadna imaan karood noqon kartaa war maanta waad ladanta oo waad caafimaad qabtaa intaasuu ku xisaabtamaya ayadaasuu wax ku dhisayaa shalay wuxuu ahaa wuu halmaamay berri waxay noqon doontana waa halmansan yahay xaaladaasu waa calooshiisa la ciyaar waa indha ku garaadlo weeye maalinkaa wixii ka hor muuqa ayuu ku xisaabtamaa laakiin wuxuu hor ahaan jiray waa halmaamaya maanta waxaa aad u badan oo laga yaaba in badan oo idinka mida inaad aragteen ama ayba jiraan oo aad u badan yihiin dad fuqara ahaa oo masaakiin ahaa oo baahnaa oo dhibanaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala khasaa'intiisa u furay oo xoolo yeeshay oo shalay ninkii shalay aan ahayn ninkii dabeecadda macaana ma aha ninkii masaajidda lagu arki jiray ma aha ninkii masaakiinta la noolaa ma aha ninkii dadka soo dhowayn jiray ma aha waa faarax kale waay faarixii aan naqaanay ma aha waa faarax kale war faaraxu xaalkaaga maxaa sidan u galay waxoogaagan xoolahaa baa lu gooyey waxaad ogaataa allah tabaaraka wa tacaala sida uu saddexdaannu u imtixaanay baa adigana waxaa laguu soo diri karaa adigoo ladan miskiin baa laguu soo diri karaa xagga rabbi baa laga soo diri gaadh baa la leeyahay weydiiso hay ku yimid waa ku weydiiso nin waad ladanta anna miskiin baana gacanta waxiisa markax meesha ka dhaqan yaa ku soo tusa meesha khalaas waaba intiiba ay ku socotay natiijadiiba waaba la gaadhay adigana waxaad u haysataa hawshu inay iscaadid qadarkaaga intaad garato ilaahay sunankiisana aad fahanto aafada ilaahay kaa saaray iyo dhibka uu kaa saarayna xusuusnow midda maanta aad ku sugan tahayna ka shukri ta soo socotana u diyaargarow oo ku talagal intaasi hadday kaa lunto maalku ku wareeriyo caafimaadku ku wareeriyo cilmigu ku wareeriyo kursiga aad maanta ku fadhido ku wareeriso war shalay miskiin jidadka taagtaagan baad ahay xagga rabbi baa tabaaraka wa tacaala ka timid oo markaasaad shago ku fadhiisatay wasiir baad noqotay mise madaxweyne war ninkii cabdilcasiis ahaye shalay aan naqaanay meelahan taagtay maqaayadaha ka shaahi jiray soo adiga ma ahayn maya xageed u aragtay war xageed u aragtay maba waa kaa meeshaasuu ka dhacay bini aadam wakaa maxaa duruustaa laynoo siinayaa duruustaa waxaa laynoo siinayaa in aan waxaan ahaan jirnayna xusuusanno ilaahay nicamkiisana ka shukrino nicamka rabbi tabaaraka wa tacaala haddaad u qirto ood ka shukrido oo waxay mudan tahay iyo jidkeeda mariso allah tabaaraka wa tacaala waa kuu daynaya waana kuu siyaadinaya waana kaaga raalli noqonaya lianna nabigeenu siduu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intaad cabitaan cabto ama cunto inaad ilaahay u mahad celiso buu raalli kaaga noqonaya kaba biyo abaad ka batay alxamdu lilah luqmad cunto abaad afka gelisood liqday alxamdu lilah ilaahay raalli buu kaa noqday tabaaraka wa tacaala markaad rabbigaa ku aqoonsato nicmadana jidkeedii aad mariso rabbi tabaaraka wa tacaala aakhare raalli buu kaa yahay adduunkaba nicmadanna waa kuu daynaya waana kuu siyaadinaya lain shakartum laaziidannakum haddaad shukridaan waa laydiin siyaadinaya haddaad isla weynaato soomaa ood isgaran weydo ood ninkii shalay aad isbedasho ood midab kale
يدقن كلا للصوب على صماها إلهي تبارك وتعالى وكوع عرونا يا الدنيا آخرها حولها النهاين ليسدا ويكرافيان إمسا حول لهان تيري وما أنت مالها تاكتاغن إمسا مضح أهيت يا وما أنت مالها تاكتاغن والإلهي تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس مدك قادوا مدء بيبوي حالته ربنا سيدا سوكوكي سكما ملاي مالك مضنتها إسقروا مالك عافمات قبطو إسقروا مالك أول بيضها إسقروا ربك كالشكر النعمة تبارك وتعالى الضومد ربنا واتكو امتحانا تهيئون حريصو أطر والضبيعات ولا تنية دقا ولا ثانية قعان فران كل دقا صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة